السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتنا كحرن kanaalkeena isha ciyaaraha kusoo dhawaada muuqaal cusub oo ka mid ah xubinteena wararka ciyaaraha oo aad kala socon jirteen bartani tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa kooxdiisa la qaybsaday guul taariikhi ah kadib markii Man City ay awooday inay soo afjarto guuldarrooyinkii xidhiidhka ahaa ee kasoo gaari jiray rubuc dhamaadka koobka Champions League. Kooxda Man City ayaa isku darka labada lugood 4-2 kaga adkaatay kooxda Dortmund. Jude Bellingham ayaa goolka koowaad u dhaliyay Dortmund si uu hoggaanka u siiyo kooxda reer Jarmal, balse City ayaa soo laabatay kadib goolkulaadkii Riyad Mahrez iyo kii labaad ee uu dhaliyay Phil Foden. Guardiola ayaa Man City gaarsiiyay semifinalka markan oo ah isku dayiisii shanaad, isagoona gaaray isla heerkii ugu wanaagsanaa ee uu gaarsiiyay kii isaga ka horreeyay Emmanuel Pellegrini sanadkii 2016. kooxda ka dhisan Manchester ayaa wajihi doonta Paris Saint-Germain ciyaar aad loogu xamaasad qabo. Kooxda marka loo eego aad ayay muhiim ugu tahay, taas ma diidi karno. dhab ahaantiisa waxaanu rabnaa intan in ka badan. Guardiola ayaa intani warbaahinta u sheegay kulan dhaca. Guardiola ayaa sidoo kale sheegay inuu filayay in lagu sheego mid guul daraystay haddii ay Dortmund awoodi lahayd inay noqoto kooxdii afraad ee xidhiidh ah ee City ku reebta wareegga rubuc dhamaadka kadib kooxaha Lyon, Tottenham iyo Liverpool. sanadkiisii ugu horreeyay ee 2016-17 ayay kooxda Monaco ku reebtay wareegga 16. guuldarradan ayaa sidoo kale macnaheedu noqon karaa in kooxda Borussia Dortmund ay ka tagaan xidigo fara badan oo da' iyo ribo leh ah dhammaadka xilli ciyaareedkan. xidigaha bixi kara waxaa ka mid ah kan ay aadka u doonayaan kooxo badan oo Yurub ah ee Erling Haaland iyo weliba da'yarka reer Ingiriis ee Jadon Sancho. dhanka kale haddaynu eegno, tababare Zinedine Zidane ayaa ku hogaamiyey kooxdiisa Real Madrid semifinalka koobka Champions League, halka club uu ku dhammaysan doono koob la'aan xilli ciyaareedkan. barbardhac eber ah oo ay xalay ku galeen garoonka Anfield ayaa ku soo saaray kooxda Los Blancos guushii hore ee 3-2 ahayd. kooxdan 13 jeer hanatay koobka Champions League ayaa ku soo laabatay semifinalka koobkani markii ugu horreysay tan iyo 2018, markaasi oo Zidane koobka kor u qaaday markii saddexaad ee xidhiidh ah kadib guul uu ka gaadhay kooxda club ee Liverpool. dhammaantaya kooxda waanu jiidaynaa, dhinacanina had iyo jeer taas ayuu sameeyaa, waxaanan rabnaa intaas in ka badan, ayuu Zidane warbaahinta u sheegay. xilli ciyaareedkan ayaa bilowgiisa u muuqday mid aan u wanaagsanayn kooxda Real Madrid. bishii January waxay 10 dhibcood horyaalka ka hooseysay kooxda Atletico, hase yeeshee hadda waxay u jirtaa keliya 1 dhibic, iyadoona kooxdan Los Blancos ay u dagaalamayso sidii ay double ugu guulaysan lahayd. waxaa nagu waajib ah inaannu aad ugu faraxsanaanno sida aanu hadda wax u wadno, sababtoo ah waxa uu ahaa xilli ciyaareed aad u kakan. dhanka Liverpool waxay xilli ciyaareedkoodu sii noqonayaa mid aad u sii adag, kaasi oo hadda la hubo inuu ku dhammaan doono bilaa koobab. kooxdan ayaa sidoo kale u halgamaysa sidii ay ugu soo bixi lahayd Champions League xilli ciyaareedka soo socda, iyagoo hadda 3 dhibcood ka hooseeya kooxda kaalinta afraad ku jirta ee Chelsea, iyadoona ay horyaalka ka dhiman yihiin 7 kulan. asxaabtana waxaan muuqaalkan intaas ayuu ku egyahay. fadlan ha ilaawin inaad like iyo share ku caawisid muuqaalkan, sidoo kale kanaalka saartid subscribe adoon hilmaamin inaad daartid gambalelka digniinta. waaniga idin leys maqal damo xiisa leh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.